culimada ansaarudiinka Soomaaliland ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabteen xaruntooda magaalada Hargeysa waxa ay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee shaqaaqadu ku dhaxmartay deegaanka Dararweyne ee gobolka Sanaag. culimada ansaarudiinku waxa ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland ba u soo jeediyeen in si ballaaran looga hawlgalo daminta dirirtaasi, isla markaasina waxa ay bulshada walaalaha ee wada dega deegaankaasi Dararweyne ay u soo jeediyeen inay dhowraan nabadgelyada dalka. kulankaasi waxa ka hadlay culimo ay ka mid ahaayeen Sheekh Axmed Caabi Cabdi iyo Sheekh Ibraahim Diiriye Bilaal, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhacdadii ka dhacday gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelafweyn tuulada Dararweyne iyo dhacdooyinkii ka horeeyay ee soo noqnoqday. waxaanu baaq u diraynaa dadka muslimiinta ah ee walaalaha ah ee halkaa wada dega. walaalayaal, waxaanu idinku baraarujinaynaa inay Ilaahay ka cabsataan. dilku waa kabaa'irta dunuubta waaweyn weeye. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu nahiyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inaga nahiyey dilka xaqdarrada ah. ugu baaqaynaa dadka walaalaha halkaa wada dega dilkaa soo noqnoqday inaa ka tanaasushaan, inaa ka joogsataan, inaa Ilaahay ka cabsataan. berri ka maalin waa ka tegaysaan adduunyadoo reer hebel jiri mayse. inaa Ilaahay ka cabsataan. labada beelood ee meesha wada dega ee weligaa dagaal ka dhex dhicin dilkaa soo noqnoqday ha la joojiyo. ciidamada qaranku way mahadsan yihiin, aad baan ugu mahadnaqaynaa. cidda dabka shidaysa tallaabo adag in laga qaado ayaanu xukuumaddana aanu ugu baaqina. waxaanu leeyahay walaaladii Ilaahay ku afro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu ku yidhi man qatala mu'minan mutacammidan fajazaahu jahannam. maxaa ka weyn qofka qof walaalkii cabdi u dilaa abaalmartiisu waa naarta. walaaladii waxaanu leenahay shaydaan baa maqlaysaan, dad isbaabiinayaa maqlaysaan. walaalaa tihiin islaamnimada, jaar baa tihiin, isu seedi baa tihiin, wada qaraabaa tihiin. waxaanu leenahay wax haddii uga noqda annana sidaasaanu Ilaahay idiin baryaynaa. Maxamed Jiciir Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.